waxaa maanta duleedka degmada Dila ee gobolkani Awdal si diiran loogu soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo horkacayo gudoomiyaha cusub ee gobolka Awdal dhawaan madaxweynaha Soomaaliland u soo magacaabay waxaana soo dhaweyntaasi ku wehelinayay wasiirada wasaaradaha ganacsiga beeraha maalgashiga agaasimayaasha guud ee wasaaradaha biyaha dastuurka xanaanada xoolaha iyo shaqo qaran gobolka Awdal degmada Dila oo heegan u ahayd tan iyo sidii lagu magacaabay soo dhaweyntaada oo intaasoo habeen aan seexan ku soo dhaweey kuleeyihiin baan u taagnay dariiqa barasaabka gobolka Awdal waxaan leenahay ku soo dhawow albaabkii laga galay weey gudoomiyaha Maxamed Rashiid Mr Timbaro oo runtii wax weyn gudoomiye loo han weeyahay meel badan ka soo shaqeeyay ma garanaysaa ay karti badan u leh xagga nabadgelyada iyo horumarka insha Allah taala gobolka waan ku soo dhaweynaa degmada Dilana waan ku soo dhaweynaynaa aad baan idinku mahadinayaa sida galkacal kale ee reer Dilay igu soo dhaweyseen waan isku ogeyn anigu in Dila dhaafayna ma hiyo Dila waa halkan Awdalba ka bartay marka kulli hadaa la yiraahdo intaan idin la joogo ku soo waliba idin hoyan doona hadaa la yiraahdo marka soo dhaweyntaasi kadibna waxa isla maanta si rasmi ah xilkii loogu kala wareejiyay gudoomiyihii hore ee gobolka Awdal iyo gudoomiyaha cusub ee dhawaan madaxweynaha Soomaaliland u soo magacaabay gobolka Awdal munaasabadaasi oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan maamulka gobolka kan degmada iyo sidoo kale bulshooyinka kala duwan ee gobolkan Awdal waxay soo isku mid u sii sabootiyeen gudoomiyihii hore ee gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali iyagoo soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee gobolka Awdal soo dhaweynayna waftiga inoo yimiday uu hogaaminayo barasaabka cusub ee loo soo bedelay gobolka Awdal waxaan isagana sagooteynaa barasaabkii hore ee hadeelana gobolka Awdal barasaabkeenii hore Cabdiraxmaan aad iyo aad uu gobolka ula shaqeeyay dhaqanka ula shaqeeyay barasaabka cusub ma aha nin ku cusub magaalada ma aha nin la soo dhaweynayo marka hore gudoomiye Cabdiraxmaan Axmed Cali aad iyo aad baan walaal ku sagooteynaa wixii aad qabatay eed ka qabatay gobolkan iyo qaranka dalkaba aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay soo dhaweynta maxamed aad iyo aad baan ku leenahay gudoomiye u soo dhawow kulli anigu waxaan leeyahay qof kasta oo gobolka ku nooli saamax buu iga yahay waxaan codsanayaa wax kasta oo dhici karaane hadii wax la iga tirsan madaxda xusuustaa saamax iyada ummadda nabi maxamed wixii maqlaya ilaahayna waxaan ka baryayaa qof walba halkiisa inuu khayr ku siiyo cid aanu maanta caloosha wax ugu ayaanay ma jirto ismalihi cid baa kugu soo dhaweynaysa gobolka Awdal waayo haddii uu qofku laba jeer dhalan lahaa waa gobolka aan ku dhalan lahaa Awdal khayr baa idin rajaynayaa aad baan iyo kor iyo hoos baan soo wareysan doonaa waa wada joognaa magaalo aan baqayo cuqdad ka qaba midna maaha khayr baan idin rajaynayaa waxa idin ka filanaya waa khayruun in aqoontaas ila garab gashaan gobol dhibaato badan ayuu ka yimi laakiin gobol fiican uu soo galay marka madaxweynuhu uu idin soo naqiyay reer Booramo oo bariyaan dib way guulayseeno xagga barasaabka oo ka yar caawinaysan kulli waxba yartijiray uu jiray buuqo marka waa la idinka dhaqdhaqo sanduuqi waxa la idinka furay halkii ugu wanaagsaneyd ayaa bundadii la idinka furay marka hadda ay soo ilaashanaysaa idinku baa yaqaana imika xilka halka roojin labada gudoomiye. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.